halkani waa Wadani News. Kenya oo safiirka Soomaaliya dalkaasi muddo kooban ugu qabatay inuu ku soo baxo keedana u yartay. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo warka soo saaray shir maalmihii u dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho. taliyaha ciidamada lugta ee Uganda oo booqday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir oo digniin u dirtay dadka baraha bulshada ku soo bandhiga dacwadda ay u gudbiyaan maxkamadaha dalka. xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo Sacuudiga ugu ambabaxay sidii ay ugu qancin lahaayeen cafinta deymaha iyo iibsashada xoolaha Soomaaliya. qaar ka mid ah dadkii uu saameeyay dabkii dhawaan ka gacay suuqa Bakaaraha oo cabasho ka ah in la boobayo dhulkooda. baarlamaanka Puntland oo cod aqlabiyad leh ku meelmariyay golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Deni iyo walaac laga muujiyay dib u dhac ku yimid doorashada dalka Nigeria. mar kale habeen wanaagsan waa sabti ay xad soo galayso taariikhduna ku aastaysan tahay 16 bisha 2 ee February 2019 warka oo dhan caawa waxa la diyaaraa wariyaheena Maxamed Cali Maxamed. waa mahadsan tahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. Kenya ayaa waxa ay ku amartay safiirkeeda jooga magaalada Muqdisho in si degdeg ah Soomaaliya uga soo baxo iyadoo dhinaca kale safiirka Soomaaliya iyo Kenya lagu amray in muddo kooban uga baxo wadankaasi. wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinada Kenya ay ka qoreen arintaas ku aadan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya soo kala dhaxgalay khilaafka waxa stuudiyaha igu heliyo haatan nooga warami doona Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim. maxamed cali wad mahadsan tahay oo idin salaamay adiga dhageystayaashaba war goor dhow soo baxay ayaa in dawladda Kenya ay u yeertay safiirkeedii u fadhiyay Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho General Lucas Tumbo iyadoona sidoo kale muddo 4 saac sida lagu soo waramayo ugu qabatay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan si uu dalkaas uga soo baxo Muqdisho dib ugu soo laabto. sababta ayaa warbaahinta Kenya ilaa iyo xilligan wararkaasi soo tabinaya waxay ku sheegayaan inay la xiriirto murankii badda Soomaaliya iyo Kenya muddooyinka u dambeeyay ka dhaxeeyay oo Kenya ay ku doodayso in badda ay Soomaaliya xilligan ka sameynayso baaritaan shidaal. mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo la yiraahdo Macharia Kamau ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu yiraahday dawladda Soomaaliya si looga xumaado ayay uga falcelinaysaa arintii la xiriirtay murankii badeed Kenya nagala dhaxeeyay taasi oo xilligan ay ka sameynayaan baaris ayna baarayaan qobaro ka socda dawladda Ingiriiska taasina ay keentay in Kenya ay jarto xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya oo xilligan ay u yartay safiirkeedii Muqdisho u fadhiyay isla markaana afar dhacdo uga qabatay safiirka Kenya ee Soomaaliya inuu Muqdisho ku soo laabto. Cabdiqani dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadan ognahay in warkan goordhow uu soo dhacay ma ka hadashay dhacdadan ay ku amartay Kenya in safiirka Soomaaliya xagga joogo wadanka uga baxo keedana ugu yartay. wali Maxamed war rasmi ah dawladda Soomaaliya kama hayno isku day wajir aan sameynay inaan helno wasiirka arrimaha dibadda safiirka Kenya laga soo cirinayo ee Tarsan iyo mas'uuliyiin kale balse ilaa imika ma hayno war jawaab u ah ama Kenya ku wajahan Soomaaliya ka soo baxay. kaasi wuxuu ahaa Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo ka waramay Kenya oo safiirkeedii jooga Soomaaliya u yeertay taa badalkeedana ku amartay safiirka Soomaaliya ee joogo Nairobi in wadankaas si degdeg uga baxo. wixii war ay ku soo kordho waad maqli doontaan. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa waxa ay war ka soo saareen shir maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho. dhinaca kale taliyaha ciidamada lugta ee Uganda ayaa waxa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya. waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir socday 5 maalin kaas oo ay lahaayeen taliyaasha AMISOM militariga Soomaaliya wakiilo ka socday qaramada midowga Afrika iyo qaar ka mid ah dalalka taageera Soomaaliya. shirka oo diiradda lagu saarayay qorshaha ka bixista AMISOM ee dalka qaadista weerar ka dhan ah al-shabaab iyo sidii loo dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban. waxyaabaha ugu weyn ee shirka la isla qaatay waxa ka mid ah in weerar lagu ekeeyo halka ay al-shabaab ka soo abaabulayaan weerar ka dhanka ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. qorshahooleedka aan isku raacnay waxa uu ka kooban yahay qorshahooleed isku xiran si loo taageero qorshaha kala guurka dawladda Soomaaliya ka saarida al-shabaab meelaha ay kaga sug yihiin dalka ilaalinta xarumaha dadka rayidka ayuu yiri Simon Molongo oo ah ku xigeenka wakiilka midowga Afrika ee AMISOM.
sidoo kale Maloga wuxuu soo hadal qaaday qorshaha kala guurka Soomaaliya isagoona sheegay in loo wajihi doono 3 waji oo kala ah in laga hortago weerarada al-shabaab lana kordhiyo howlgallada lagu furayo wadooyinka dhulka si ciidamada dawladda looga taageero la wareegida amniga dalka in xarumaha muhiimka ah ee Muqdisho lagu wareejiyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliya in la dardar geliyo qorshe ka bixista ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka qorshaha la dejiyay si loogu guuleysto ayuu sheegay ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika AMISOM in laga maarmaan ay tahay in la shaqeeyo taliyaasha ciidamada dawladda Soomaaliya dhanka kale taliyaha ciidanka lugta ee dalka Uganda Peter Ewelo ayaa toddobaadkan booqasho ku yimid Soomaaliya wuxuuna taliyaha si gaar ah u booqday goobaha ciidanka Uganda qaybta koowaad ay kaga sugan yihiin taliyaha ayaa maalintii Khamiista ahayd oo taariikhda ay ku beegnayd 14 Febraayo booqday ciidanka Uganda ee ku sugan magaalooyinka Barawe, Buulumareer, Qoryooley iyo deegaanka Ceeljaale iyo Marko oo dhammaantood ka tirsan qaybta koowaad ee ciidamada AMISOM ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha ciidanka lugta ayaa ciidamada AMISOM ku dhiirigeliyay in ay isdifaacaan isla markaana ay u shaqeeyaan si wadajir ah si ay ugu gudbaan caqabadaha hortaagan. sidoo kale taliyaha ayaa wuxuu la kulmay gudoomiyaha degmada Qoryooley Said Cali Ibrahim mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada iyo waxgaradka isagoona kala hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa sugida amniga iyo waliba dagaalka ka dhanka al-shabaab ugu dambeyntii taliyaha ciidanka lugta ee dalka Uganda ayaa maanta soo gabagabay booqashadii uu ku yimid Soomaaliya wariyahana Farxaan Maxamed Xuseen ayuu kaasi ahaa waxaana uu ka waramayay taliyaha ciidamada lugta ee Uganda oo booqasho ku tagay qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose maanta ayuuna soo gabagabeeyay safarkii uu ku yimid magaalada Muqdisho xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa Sacuudiga maanta waxa ay ugu ambaxeen sidii ay ugu qancin lahaayeen in Soomaaliya ay ka cafiyaan deymaha ay ku leeyihiin iyo sidii ay u iibsan lahayd Sacuudiga xoolaha Soomaaliya liibaan nuur xasan ayaa warkani soo koobaya رئيس الوزراء ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo ay weheliyaan wasiirada maaliyadda iyo xanaanada xoolaha ayaa maanta dalka Sacuudiga ugu ambaxay sidii ay boqortooyada Sacuudi Carabiya ugu qanci lahaayeen inay dib u bilowdo iibsashada xoolaha Soomaaliya iyo arrimo kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka warbixiyay qorshaha safarkooda ayaa sheegay in dawladda Sacuudiga ay kala hadli doonaan arrimaha deyn cafinta kabka dhaqaalaha dalka dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya iyo sidii acmaasha xajka loogu fududeyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaa wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka aniga iyo wasiirka xanaanada xooluhuna la socono ayaa maanta ka ambaxaya halkan Muqdisho tagaya magaalada Riyaad ee dalka Saudi Arabia 2 maalmood oo shira ayaan halka la soo galaynaa dawladda boqortooyada Sacuudiga anagoo ka hadli doona waxyaalo dhowr ah arrimaha inaga dhaxeeya waxaana noogu weyn anaga waxa weeye arrintii aan daba soconay ee ahayd caafinta deymaha ay nagu leeyihiin iyo waxyaalo kale oo la isla soo qaaday oo kabka dhaqaalaheena uu ku jiro insha Allah waad noo soo ducaynaysaan labada cisho dabadeed waxaan ku soo noqonaynaa Jidda hadii alla yiraahdo iyadana aan maalin iyo laba joogayno oo aan ka wada hadli doono arrimaha ahmiyadda ay noole oo xoolaheena ayadoo arrintii xajki soo dhowdahay waxaan doonaynaa waxa weeye kuna heshiinayno ka wada hadallo arrinta xoolaha iyo sidii loo habeyn lahaayay sidii xoolaha la inoogu iibsan lahaa ayaa sidaan wax ugu soo heshiin lahayn waa arrin la isla qaada dhigay la isla lafaguray oo la doonayay marka in la soo dhameystiro boqortooyada Sacuudiga oo muddo dheer Soomaaliya looga dhoofin jiray xoolaha nool ayaa sanadiyan dhaafay gabi ahaanba joojisay iibsashada xoolaha Soomaaliya ayagoo sheegay in cudurro ay qabaan xoolaha looga dhoofiyo Soomaaliya maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa waxa digniin adag ay u dirtay dadka baraha bulshada ku soo bandhiga dacwadaha ay u gudbiyaan maxkamadaha dalka Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo haya gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Abshir Umar Cabdullaahi ayaa digniin adag waxa uu diray dadka isticmaala baraha bulshada una adeegsada galalka dacwadaha ee hor yaala maxkamadaha una baahan go'aanka gaarista gaar ahaan kuwa rayidka ah garyaqaan Abshir Umar Cabdullaahi ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 bisha 2 ee 2019 cidii ka dacwoota baraha bulshada soo dhigta kiis ka socda maxkamadaha in lagu soo oogi doono ciqaab adag ayada oo baaris ay ku sameynayaan hay'adaha dambi baarista kadibna go'aan cadaalad ah laga gaari doono wararka uu ku faafiyay baraha bulshada maanta laga bilaabo waxay noqon doontaa cidii ka dacwooto oo social media soo dhigto kiis ka socda maxkamadda in la kiiskiisana cadaalad laga gaari doono oo meel la dhigi doono
balse ay ka hormari doonto in kiis ciqaaba asaga lagu soo ogo ee adaa maaragtay baarista loo diro sababta uu ka lahaa iyo ulajeedka uu u sameeyey sumcad radistaas in la baaro isla markaana maxkamadda awoodda u leh la horgeeyo haddii wax lagu helay iyo haddii lagu waayna markaa la baari doono. hadalka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir garyaqaan abshir cumar cabdulaahi ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe lagu arkayay baraha bulshada dad dacwadooda ay taallo maxkamadaha dalka hase ahaatee dacwadooda ku soo bandhigaya baraha bulshada ay ku kulmaan iyada oona labadii qof midkiiba uu sheeganayo in uu gar leeyahay. qaar ka mid ah dadkii uu saameeyey dabkii dhowaan ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay cabasho ka muujiyeen in la boobayo dhulkooda iyagoona doonaya in dibudhis ay ku samaystaan. yoonis duraan cali ayaa warkan inoo haya. iyadoo bishii January aan soo dhaafnay uu dab khasaare badan geystay ka kacay suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta Hoodheeda iyo qaybo kale oo kamid ah suuqaas ayaa maanta waxa idaacadda kulmiye soo gaaray qaar kamid ah ganacsatadii suuqaasi ku hanti beelay. ganacsatada ayaa waxay sheegeen in markuu ka gubtay suuqii ay ku ganacsanayeen maalmo kadib ay isku dayeen inay dib u dhisaan goobahoodii ganacsi laguna wargeliyay inaysan wax dib u dhisaysan ku sameyn karin suuqaasi. waxayna tilmaameen ganacsatada in amarka uu ka soo baxay gudoomiyaha degmada Howlwadaag. sidoo kale waxay sheegeen ganacsatada in suuqa ay ku noolaayeen muddo dhan 45 sano bixinayeenna cashuurta dawladda. ganacsatada sii haldiyay ayaa waxay dhinac kale baaq u direen madaxda sare ee dalka iyagoo ugu baaqay in ay soo fargeliyaan waxa suuqa bakaaraha ka taagan. waxaan ka hadlayaa aniga iyo dad dhareer wadaag iyo dhul wadaag iyo dhalasho wadaag aan nahay oo bakaaraha dhibaata nagu qabatay gubasho ah oo dhul aan ku nooleen 45 sano oo ilaahay nagu makaniyay dawlad Soomaaliyeedna markii u dambaysay aqoonsi lahaanshaha ay nagu siiday ayaan waxaa nagu qabsaday dhibaato waa gubatay waxa gubayna ilaahay baa og. waxa weeye markii sidaas u dhacday waxaana la ku yiri 63 qofood oo muwaadiniintaas dhibaatadu gaartay kamida dhulkiini ma dhisan kartaan 40 iyo dhowr cashana aan joogno muwaadiniinna aan nahay dawladda federaalkana aan ka sugaynay in inta nala soo booqdo nala kaalmeeyo. amarkaas wuxuu ka soo baxay mas'uuliyiin oo ka mid yahay gudoomiyaha degmadu iyo agaasimaha waaxyada suuqyada waxay nagu yiraahdeen waxa bixiyay waraaq amara oo la yiri ilaa amar dambe lama dhisi karo gudoomiyaha gobolka injineer Yariiso. bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa daawa waxaan codsanayaa dhul aan deganaay 45 sano in meeshaan hadda la ii sheegtay oo ilyaal aan ku korsaday hadda dadna dhacaaya oo waxaan ku leeyahay aan noo yimid oo waxaan ku leeyahay la siiyay oo yiri ma dhisa kartiin mana heli kartiin meel kastoon tagnana waa nala qabsaday. marka waxaan codsanaynaa dad masaakiin aan nahay 63 qofoodana 60 ka saddexdaayna waa nala dhacay. go'aanka uu ka soo baxay inaan suuqaas la dhisay marka dawladda hoose ka soo baxay degmada Howlwadaag ninka jooga waa ninka naliqay oo ummadii nagu diray oo meel kasta tagay oo dhulkaan ay gatay. waxa dhacday dhul dukumeenti leh oo dawladda leh oo gobolka Banaadir ay jareen in maanta anagoon ogeyn la yiri waxa la sameeyay dad kale lagu wareejiyay maamulka wareejiyay oo gobolka Banaadir ayaa naloo sheegay waxa sheegay xogayihii waaxyaha suuqyada ayaa sheegay ka degmadana sidoo kale wuxuu yiri dadaal si waxaan codsanaynaa oo baal dawladda iyo maamulka ka jira dalka ka codsanaynaa in cadaaladu ay timaado suuqa bakaaraha. 12 bishii January ayay ahayd markii uu xilli habeenaha uu dab ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. sidoo kale waxaa xusid mudan in dabka uu dhaliyay khasaare badan oo hantiyadeed. baarlamaanka Puntland maanta waxaa la horgeeyay golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha wakiilada Puntland. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahinaya. fadhiga xubnaha golaha wakiilada maamulka Puntland oo ka qabsoomay xarunta baarlamaanka ee magaalada Garowe ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed. fadhiga xildhibaanada baarlamaanka waxa uu ahaa mid codka kalsoonida loogu qaadayay xubnaha golaha xukuumadda Puntland ee dhawaan uu soo dhisay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani. madaxweyne Dani ayaa khudbad uu kaga hadlayay qorshihiisa siyaasadeed ee 5 sano ee soo socota si kooban u dulmaray. waxaana uu sheegay in xukuumaddiisa ay wax weyn ka qaban doonto arrimaha amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada bulshada, isagoo sheegay in qondo miisaaniyad gaar ah ay u samayn doonaan difaaca iyo xoreynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn.
63 mudane oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland ayaa si wadar ahaan u siiyay codka kalsoonida golaha wasiirada Puntland oo ka kooban 47 xubnood waxaana xubnaha golaha wasiirada maanta ay goobjoog ahaayeen xarunta hoolka baarlamaanka waxaana 3 ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ay diideen in codka kalsoonida ay siiyaan wasiiradan cusub gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed ayaa ku dhawaaqay natiijada codka la siiyay golaha wasiirada Puntland golaha wasiirada ayaa mid loo dhageystay taariikh nololeedkooda iyo qorshayaashooda 5 sano ee soo socota ay ku hogaamin doonaan maamulka Puntland haddii ay xafiiska sii joogaan xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland sidoo kale waxay maanta cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen qorshe siyaasadeedka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu maanta ka horjeediyay xarunta hoolka baarlamaanka ee magaalada Garowe halka warkaasi habeen dhageystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda kulmiye doorashada madaxtooyada iyo midda baarlamaan ee dalka Nigeria ayaa dib loo dhigay muddo 7 ah iyadoon arintaasi ay qaadeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ay walaac ka muujiyeen dadka korjoogtada ka ah doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaan ee dalka Nigeria guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ayaa go'aankaasi ku dhawaaqay 5 saacadood ka hor markii la filayay in codbixintu ay bilaabato maanta oo Sabti ah codbixinta doorashada ayaa waxa lagu waday in maanta oo Sabti ah ay bilaabato go'aanka guddiga ayaa yimid kadib markii kulan aan caadi ahayn ay ku yeesheen xarunta magaalada caasimadda ee Abuja toddobaadkii la soo dhaafay xarumo dhowr ah oo uu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa la gubay waxaana burburay kumanaan kaarar casri ah ee doorashooyinka loogu talagalay warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa naga inta cidduu warka habeen seego waxa ay dib kaga heli karaan page-ka internet-ka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radiokulmiye.net meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan halkani waa Wadani News